gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatuma Maxamuud Sheekh Cumar ayaa wuxuu fariin u diray laba beelood oo wada dega koonfurta gobolka Sool isagoo ugu baaqay in ay soo dhameystiraan gudiyadii nabadeynta iyo wada hadalka labada beelood si degdegana la isugu yimaado gogashii hore loogu ballamay. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu u amaanay qurba joogta iyo dadka nabadda jecel sidii loo walaalayn lahaa dadka degan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn. nabadgelyada ayaa waxay ka tahay inay dadku midoobaan taasoo wax badan ka tari doonto horumarka iyo in dadku ay isdhex galaan. waxaana ka mid ah hadaladii gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo hadaladiisa sida tan ku jiray hawlo laba qabiil oo wax isu sheeganaya oo Baar Sameeye Khayr Cabdi hawshaas oo guddi aan gudoomiye u ahay loo xilsaaray mudana aanu ka dab qaadaynay waxaanu waxgaradkoodii iyo odayaashoodii iyo timadoodii iyo ogaashoodii baa ku heshiinay 3 qodob. kow in gogoshu la isugu imanayaa ay noqoto magaalada Saaxdheer. 2 in taariikhda la isugu imanayaa ay tahay 23 bisha 11 2014. 3 in gogosha ballanqaadkeeda iyo fulinteeda ay leedahay qolada Baar Sane taatan Garaad haddaba iyada oo xilligii la qabtay ay aad iyo aad u dhowdahay oo muddo gaaban ka hadhay ayna ahayd in qolo waliba soo gudbiso 15 xubnood oo qabiilka ay soo xusheen oo u xaajo qaada. waxaan ku wargelinaynaa inay soo gudbiyaan ugu dambeyn bisha 22-keeda qolo waliba ay soo gudbiso 15 xubnood ee u xaajo qaadi lahaa si maxay ahayd ay hawshoodii u fushadaan. dhinaca kale qolada Baar Sane gogosha ahaydna waxaan ku wargelinaynaa inay dhamaystirtaan xaajooyinka wixii ka dhiman gogosha. aad iyo aad baanu ugu hambalyeeynaa uguna raalinahay qabashada xilligii aanu qabanay inay ku وما هبنقينا حضنا ببجوغا أو خير عبدية أو سفي عن أو آدو وناكسن نوغلا قيب خاطي هوشا فرنتي إيو محوها إذا سوى فيسنت اللبدا قبيل آديات بانوغو ما هبنقينا إنا حكالا ديقودا وحان كهوتانينا ببجوغتا إنا ييغونا نغالا شقيان سورة جرينتا إيو فرنتي قوغوشا إيو سكينيدا اللبدا رير ولالها si hawshaas loo soo afjaro inay ka qayb qaataan oo gacan weyn naga siiyaan baan aad iyo aad uga codsanaynaa. waa mahadsantihiin waana salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi